بسم الله الرحمن الرحيم. وبرنامجكي لما عبحي كبار كمبيوترka afkaaga hooyo oo aan ugu talagalay barnaamijka la yiraahdo Office 2016 programkiisa Word xarfihiisa shortcut-ka ah haddaan markaa idin faahfaahiyo home macnaheedu waxa weeye sadarka ugu horeeya marka aad qorto meesha u dambeysay gee oo aan ka soo bilaabay wax indina macnaheedu waxa weeye meesha ugu horeysa oo qoraalkaygu u marayay gee waxa noo xiga waxa la yiraahdo left arrow or the right arrow wuxuu ku taalaa keyboardka waa afar falaarood oo kala koreeya mid hoos u jeedo mid kor u jeedo labana ay u jeedaan bidix iyo midig oo loogu talagalay in xarafka hadba dhinaca aad doonaysa inaad ugu dhaqaaqdo waxa ku xiga waxa la yiraahdo control plus left plus arrow oo macnaheedu yahay hal xaraf hore u bood xagga bidixda sidoo kale control plus right plus arrow oo iyadana u dhigmata hal xaraf xagga midigta add shift plus left arrow oo iyadana u dhiganta sidoo kale xagga bidixda shift plus right plus arrow sidoo kale waa la mid opposite weeye control plus shift plus left arrow waxa weeye marka aad highlight-ka ka qaadaysid for example highlight baa saartay unselected markaa ka dhigaysid xagga bidixda ka qaad highlight-ka qodobka xigo ah control plus shift plus right arrow iyadana waxay u dhigantaa xagga midigta u soco oo ka qaad highlight-kii aan saaray shift plus home oo for example haddii aad ku jid ilaa 5 page 6 page qoraysay shiftiga intaad qabatid aad tiraahdo home wuxuu tagayaa kaasarka baalka la yiraahdaa page-kii ugu horeeyay meeshii aad wax ka soo bilowday ilaa ma boqol page ahaato kow buu ku geynayaa shift plus end oo iyadana u dhigmata meesha ugu hooseysa ee qoraaladii aan qoray oo hadday noqoto 100 page hadday noqoto 30 page waxa ku xiga common task in Microsoft Office Word common task wax iska marna la isticmaalo oo common oo macnaheedu yahay control plus p oo u dhigmata farta black ka dhig oo bold ka dhig xoogaa burburi control plus I oo macnaheedu yahay italic ka dhig fartan xoogaa jiif ka dhig control plus u oo macnaheedu u dhigmo underline for example title baa qortay title-ka waxa u baahan tahay inaad underline saartid highlight baa saaraysaa control plus u baa leedahay hoos highlight-kii baa fuulaya shift plus control plus shift greater than waxay u dhigmata less than oo macnaheedu yahay xarafkan yaray size-kiisa font size-kiisa yaray control plus shift oo greater than oo macnaha ku badi xarafka weynay size-kiisa sidoo kale control plus bisha waxay iyadana u dhigmataa bishan afar geeska bishan caadiga afarta geeska oo semicolon-ka waxay u dhigmataa for example qoraal baa qortay qoraalka highlight baa saaraysaa waxa weeye qoraalkan oo dhan fartiisa yaray ama decrease increase hoos dhig oo waxa ka dhigtaa 12 13 ama kor u qaado waxa ka dhigtaa 20 ilaa wixii ka sareeya adoo control plus calaamada isticmaalaya next waxaanu wali waxa socda common task-gii remove a paragraph or character format control plus space macnaheedu waxa weeye
hal baragraph oo aad qoratay hal mar hor u dhaqaaj baragraphkaas oo dhan hor u dhaqaaj control plus C oo macnaheedu uu yahay copy copy muhiim waxaa mar walba qoraalka inaad saarto wax la yiraahdo highlight inaad doorato waxa ku xiga waxa la yiraahdo control plus X oo macnaheedu yahay qoraalkan aan highlight ka saaray gooy cut karay ka saar meesha waxa ku xiga waxa la yiraahdo control plus V oo ah halkan edit qoraalkii aan soo kubargareystay page kala ka soo qaatay for example internetka ka soo koobiyay ama meel kale marka control plus V ga oo pastiga ay waa macna badan yahay waxa jira special pasti oo loo yaqaan control plus alt plus V waxa jira isagana format pasti waxa la yiraahdo oo ah control plus shift plus V oo macnaheedu yahay sidii aan ugu soo qaatay qoraalkan ka dhig waxa jira iyadana waxa la yiraahdo undo loo yaqaano control plus Z for example anigu qoraal baan qoray waxaan rabay waxaan arkay inaysan paragraphkan qoray waxaan uusan ku muhiimsanayn ay muhiim u tahay wuxuu control plus Z haddaan iraahdo wuu ka noqonayaa control plus Y haddaan irahdana xarafkii hore ma soo noqonaya waa ka noqo ii soo celiyo u dhigantaa waa xarfaha loogu talagalay badanaa qofku inuu yaqaano keyboardka aad u yaqaano dhalinyarada حتى meelaha qaarkood imtixaanaadka waa lagu soo daraa marka